Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everyone to Grand Online Academy. My name is Muhammad. I am one of the teachers at Grand Online Academy. Well, today we have an interesting lesson, and in this lesson we will be talking about question tags. Question tags, as you see on the board. So this is our lesson for today, and we'll be talking about that inshallah ta'ala. And before we begin the lesson, I want you to share this video with your friends and family. And on top of that, I want you to know that we are taking new English classes. So if you want to learn English online, please contact us. Thank you. Okay, now let's get to the board and start the lesson. Question tags. What are question tags? It's a very good question. Question tags are short questions which are put at the end of a statement. They are at the end of a statement, okay? We basically see them at the end of a statement or a sentence, okay? And we use question tags when we're asking for confirmation or agreement. That's when we use them. We use them when asking for confirmation or agreement, when you want to confirm something, okay? Or when you want to basically know the answer of something. That's when we basically use question tags. Here we have sentences. We have 7 sentences, and we're going to be talking about them inshallah ta'ala one-on-one, and you'll understand them clearly inshallah ta'ala. Okay. Ashirkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay waa question tags. Question tagsku waa short questions, waa su'aalo yar oo gaagaaban which are put at the end of a statement. oo xagga dambe waxa weeyaan jumlada ayaa la dhigaa. Xagga dambe jumlada la dhigaa. waa su'aalo yar oo kooban. Okay. waxaana la isticmaalaa question tags. They are used, waxaa la isticmaalaa for asking confirmation or agreement. When asking for confirmation or agreement. waxaa la isticmaalaa markaad wax hubinayso. Okay. marka ama wax ka sheegsantahay aad rabto inaad wax hubiso, ama sidoo kale aanad wax shay kamid ah aanad garanayn aad rabto jawaabta saxda inaad hesho ayaa la isticmaalaa. Okay. tusaalaha waxaa kamid ah you speak English, aren't you? marka macnaheedu waxa weeyaan qof baad ka yar shakisan tahay inuu luqadda Englishka ku hadlayo in kale waad weydiinaysaa. luqadda waad ku hadashaa soo maaha. luqadda waad ku hadashaa ama luqadda ma taqaanid soo maaha. sidaas oo kale weyn waxaad rabtaa inaad hubiso. Or when you're trying to confirm or prove something. ayaa la isticmaalaa question tags. Okay. So we mainly use question tag in spoken English, and if you use question tags, they will help you to speak English more like a native, and you'll sound natural. haddii question tags waxa lala isticmaalaa marka luqadda lagu hadlayo. haddii aad marka question tag si fiican aad u fahanto isticmaasho, waxay ka caawinayaan inaad luqadda si dabiici ah ugu hadasho ama sidii qof u dhashay oo kale. Okay, question tags. waxaan halkan ku haysanaa 7 jumladood. 7daas inuu eegi doonaa si wanaagsan baan u fahmi doontaa. Okay, before we start the sentences, I want you to know that question tags are formed with the auxiliary or moral verb from the statement. Question tagan su'aalahan waxa laga sameeyaa waxa weeyaan waa the auxiliary ama moral verbka oo xagan ka socda baa laga sameeyaa. haddii uu sentence yahay present simple, question tag muxuu noqonayaa present simple. saas oo kale weeyaan. Okay. And appropriate subject. subject waa inuu noqdo mid mar walba la tacaluqa the main ama the positive statement. Okay. Good. So number 1 is you are a student. You are a student. arday baa tahay. adigu arday baa tahay. aren't you? aren't you? Okay. marka imka xagga dhawaaqayo 2 jeer baan ku dhawaaqaya, labadu way kala duwan yihiin. aren't you? aren't you? aren't you? aren't you? waxaa jira English waxa la yiraahdaa intonations, and we cannot talk about that in this lesson. We'll talk about them in other classes inshallah ta'ala, maybe the next class. intonations hadda class kan kagama sheekeyn karno, cashar kale in ku qaadan doona. intonations ka waxa weeye waxay ka caawinayaan, they shows us the exact meaning of something. waxay ka caawinayaan ogaato jawaabta saxda ah wax. For example, haddii aad wax confirm garaynayso waxay noqonaysaa waa falling. marka intonation ka waxa kala jira laba. mid waa rising, sara codka loo qaadaya, wala jiidaya, sara loo jiidaya. midna waa falling, hoos baa loo dhigaya. marka if it's falling or the intonation goes down, haddii hoos loo dhigayo macnaheedu waa markaad wax rabto inaad shakiga ka saartay waad garanaysaa, laakiin inaad xaqiiqsataa rabtaa. You want
to confirm keliya inaad hubiso baad rabtaa. You are a student, aren't you? You are a student, aren't you? marka imika waa maxay? The intonation goes down. Intonationku imika hoos buu markaa u socdaa. macnaheedu waxa weeyaan qofkan shaki unbaa kaaga jira inuu arday yahay laakiin waad garanaysaa inuu arday yahay. Okay, what about if the intonation goes up? haddii intonationku uu sare u kaco, okay, waa rising baa la dhahaa markuu sare u kacayo. waa marka when you don't know about something and you want to know the answer, waa marka aanad wax garanayn ee waxaa jawaabtiisa saxda inaad heshaad rabto. Okay, waxaa la dhahdaa agreement. Okay, you are a student, aren't you? adigu arday baa tahay miyaanad ahayn? adigu arday baa tahay miyaanad ahayn? Okay, marka question tag waa maxay? aren't you noqonaya the question tag. This is the main part of the sentence. waana positive. qaybtan haddii positive tahay, qaybtan waa negative. If the main part is positive, the question tag will be negative. Okay, if the statement is positive, the tag will be negative. The question tag will be negative. haddii qaybta koowaad ay tahay positive ama affirmative oo si word toosan ay tahay, qaybta dambe baa noqonaysa question. haddii qaybta koowaad ay tahay negative, qaybta labaad baa noqonaysa positive. If the statement is negative, the question tag will be positive. saasay noqonaysaa. Good. You are a student. adigu arday baa tahay. Aren't you? Aren't you? miyaanad ahayn? markaas kale markaad wax confirm garaynayso. Okay. Number 2. He plays the guitar. He plays the guitar. wuxuu ku ciyaara guitar waa qalabkan music ee la tumo la yiraahdo. Guitar ama guitar Soomaaliga la yiraahdo. He plays the guitar. wuxuu ku ciyaaraa ama uu tumaa guitarka. Okay. Doesn't he? Doesn't he? marka doesn't he macnaheedu waxa weeyaan imika waa rising. You don't know about this person. ma garanaysid qofkan and you want to know the right answer. Okay, whether or not he plays the guitar. markaad rabto ma garanaysid qofka inuu guitarka ku ciyaaro. marka inaad hubiso si aad u ogaato, okay, the intonation goes up. marka intonationku sare u kacaya. Okay, aren't you? Doesn't he? Doesn't he? Okay, sidaa weeyaan. Okay. Number 3. I am a teacher. I am a teacher. aniga macallin baan ahay. Aren't I? Aren't I? miyaanan ahayn? I am a teacher. Aren't I? miyaanan ahayn? aniga macallin baan ahay. miyaanan ahayn? Okay. Good. Number 5. She won't drive the car. Will she? She won't drive the car. Will she? Okay. iyadu kaxayn maysa gaariga ama baabuurka. iyadu kaxayn maysa baabuurka. Will she? miyay kaxayn doontaa? Will she? miyay kaxayn doontaa? Okay. Number 6. Nobody went to the meeting. Did they? Nobody went to the meeting. Did they? Okay. qofna muu tegin meetingka ama kulankii. Did they? miyay tageen? qofna kulanka miyay tagin? miyay tageen? waad hubinaysaa. You're confirming. Okay. marka xagga nobody halkan wax kuma jirto negative oo muuqata. But nobody waxaa loola dhaqmayaa sidii oo negative oo kale. Okay, nobody will be treated as a negative. sida negative ka loola dhaqmayaa. Okay, nobody means waa negative bay u dhigantaa. Nobody went to the meeting. Did they? So marka imika saddexdan jumladood u dambeeya saad ku aragtaan, saddexdan sare way ka duwan. kuwan imika the main part of the sentence waa positive and the question tag is negative. laakiin saddexda dambe main part ka ama qaybtan statement ka ayaa negative ah. Question tag muxuu noqonayaa? Positive. saas u kala duwan yihiin. Okay. Nothing's ready. Is it? Nothing's ready. Is it? waxba diyaar ma aha. miyaanay ahayn? wax diyaarsan ma jiro. miyaanay ahayn? Okay. marka the last 3 sentences saddexda ugu dambeeya are different than the first 3 sentences. saddexda ugu dambeeya saddexda sare way ka duwan yihiin. marka saddexda sare qaybta koowaad waa maxay? waa positive. qaybta labaadna waa negative. Okay? The statement is positive and the negative I should say the tag question is negative. Okay? qaybta kalena qaybta koowaad waa maxay? The tag question is negative or the main statement ka ah and the tag question is positive. saasay u kala duwan yihiin. That's it for the lesson. Thank you very much. Assalamu alaikum.